Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janalka Somali Events. Maanta waxaan idin wadnaa qiso cibro qaadasho leh oo u dhaxaysa hooyo iyo saddexdeeda wiil. Hooyo ayaa waxay dhashay 3 wiil, waxayna mar waliba ku dadaali jirtay noloshooda iyo mustaqbalkooda. Markii ay 3dii wiil weynaadeen, ayay hooyadii u guurisay guri gooni dejisay. Muddo kadib, hooyadii waxay bilowday inay imtixaanto si ay u ogaato meesha ay ka joogaan iyo sida ay ula dhaqmayaan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadii waxay soo booqatay wiilasheeda midkii ugu weynaa gurigiisa. Halkaas ayay habeenkii seexatay. Markii la gaaray salaadii subax, ayay wiilkeeda xaaskiisa ka codsatay inay u keento biyo weyso qaad ah. Markii ay u keentay biyihii, ayay weyso qaadatay, kadibna salaadii ayay dukatay. Markii salaadii ka baxday, ayay biyihii waxay ku shubtay sariisha dusheeda. Gabadhii ayaa hooyadii waxay u keentay shaah, kadibna hooyadii ayaa ku tiri, gabadhaydii, sida aad ogtahay dadka waayeelka xaaladooda, xalay markii aan jiiftay waan isku kaadiyay. Xaaskii ayaa aad u xanaaqday, kadibna si xun u caysay. Hooyadiina waxay ku amartay inay firaashkan dhaqdo, carfisana siduu ahayna ka dhigto. Hooyadii waxay dhaqday firaashkii, carfisayna siduu ahayna ka dhigtay. Mar kale ayay hooyadii waxay aaday wiilkeedii labaad gurigiisa. Habeenkii ayayna halkaas seexatay, waxayna ku samaysay isla sidii ay ku samaysay midii hore. Xaaskii ayaa aad u carootay, dhiiggeediina 100 uu gaaray. Waxayna u sheegtay ninkeedii ay ku tiri, ma ujeedaa hooyada waxay u samaysay, wayna caysay. Wiilkii ma uusan ka hadlin arrinkii hooyadiis lagu sameeyay ee xaaskiisii ku samaysay, balse raalli ayuu ka noqday xumaanta lagu sameeyay hooyadiis. Kadib hooyadii way soo baxday, waxayna soo aaday gurigii wiilkeedii saddexaad oo wiilasha ugu yaraa si ay u jiifato. Waxayna ku samaysay sidii ay ku samaysay kuwii hore. Markii uu waagii baryay, ayaa wiilkeeda xaaskiisa u keentay shaah, waxayna ku tiri, gabadhaydii, xalay arrintan ayaa i qabsatay. Gabadhii ayaa ku tiri si naxariis ay ku jirto, hooyo, wax dhibaato ma lahan, sidani waa sida lagu yaqaano ruuxa marka uu gaboobo. Meeqa sano ayaa dhibtiina kusoo kaadin jirnay annagoo caruur ah, idinkana aanu sabri jirteen. Kadib gabadhii waxay dhaqday firaashkii, wayna carfisay. Hooyadii ayaa waxay tiri, gabadhaydii, waxaa jirtay islaan oo saaxiibtay ah. Waxay ii soo dhiibatay lacag, waxayna igu dhahday ii soo iibi dahab, sidaan filayo cabirkeedana waa cabirkaaga, waxaan ka codsanayaa cabirkaaga inaa i siiso si aan ugu soo gado saaxiibtay dahabka ii dirsatay. Gabadhii ayaa hooyadeed waxay siisay cabirkeeda. Kadib hooyadii way soo baxday, waxayna soo aaday suuqa dahabka lagu iibiyo. Hooyadan ayaa lahayd lacag aad u fara badan. Lacagtii oo dhan waxay ku soo iibisay dahab aad u fara badan. Kadib waxay gurigeedii isugu yeertay wiilasheeda iyo xaasaskooda, waxayna soo bixisay dahabkii faraha badnaa ee soo gaday. Waxay uga sheekaysay arrintii ay ku samaysay mid kasta, waxayna u sheegtay in ay sariirta ku kaadin, balse ay biyo ku shubtay, ayna doonaysay inay ogaato meesha ay ka joogto. Kadib dahabkii ayaa waxay u soo labistay xaaskii uu qabay wiilkeedii ugu yaraa wiilasha. Waxayna tiri, tani waa gabadhaydii runta ah, ayada ayaa la noolaan doona markii aan gaboobo ilaa aan ka dhimanayo. Labadii xaas ayaa aad u naxay, waxayna ka shalaayeen wixii ay ku sameeyeen sodohdooda, maxaa yeelay waxaa meesha ku gafay dahab aad u fara badan iyo kalgacayl loo muujiyay gabadha ugu yareed meesha. Qisadan ayaa waxayna tusaysaa samafalku inuu yahay samafal, waalidkana loo ixtiraamo lana daryeelo, maxaa yeelay muddo badan ayay dhabtan ugu soo hayeen. Marka fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan, subscribe saar, muuqaalkana like saar, noona share garee. Aad iyo aad u mahadsantahay.